munaasabadan oo lagu daahfurayay mu'asasada Sheekh Maxamed Macalin ee ka shaqeynaysa faafinta diinta islaamka dib u heshiisiinta iyo cilmi baarista oo ay ka soo qayb galeen maamulka mu'asasada culimada diinka Soomaaliyeed hay'adda culimada Soomaaliyeed xildhibaano aqoon-yahano dhalinyaro odayaasha dhaqanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Sheekh Cabdi Fataax Xasan Axmed Sheekh Shimbiro oo xubin ka ah mas'uuliyiinta mu'asasada iyo Sheekh Cabdirasaaq Macalin Aadan oo isna kamid ah culimada ayaa si wada jir uga hadlay muhiimadda ay leedahay horumarinta iyo barashada diinta islaamka ka shaqeynta arrimaha waxbarashada amalka dacwiga ah iyo waxbaridda inay yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan ee qof bini aadam uu qabto waa amalka ambiyada waa hooshii Allah subhanahu wa ta'ala uu u doortay rusushii dadkii uu soo diray waana muxuu ahaayay ummad haddii la rabo in la badbaadiyo dariiqa ugu sahlan ee laga badbaadin karo haddii ummad burburaysan waa meelaha ugu badan ee ka burburto dadka culimada ee wadankeena jooga waliba raggii xiliyadan dambe oo baraarugan faraha badan ee islaamka u yimi bacda isticmaal dhammaantood way isku waafaqsan yihiin fadliga uu Sheekh Maxamed Macalin ku leeyahay dacwadan iyo diinkan Soomaaliya Dr. Maxamed Xaaji iyo Sheekh Yuusuf Cali Caynta ayaa ka warbixiyay doorka culimada Soomaaliyeed ay ka qaadanayaan arrimaha waxbarashada faafinta diinta islaamka iyo howlaha dib u heshiisiinta sidii aakhiro raali loo ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala rida Allah sidii loo gaari lahay inuu dadka fahamsiyo warkiisa oo dhan wuxuu ku warwareegi jiray asagoo quraanka dana fasiraya muxuu yahay quraankan adduunkan maxaa naloo keeno maxaa Ilaahay naga rabaa Ilaahay muxuu u caroonayaa muxuu raali ka yahay maxaa ku dambeeya xagaad ka bilaabataa xagaad ku dhamaataa yaa berito maxaad haysataa beri shalad ma aadan joogin maanta waa joogtaa beri waa tegaysaa Ilaahay hortiisa istaagay yaa wakiil ku ah yaa ku doodaya yaa ma arkaysa maxaad ku sidataa maxaa amalkaagu uu yahay gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa kula dardaarmay culimadu inay kordhiyaan dadaalada iyo wacyigelinta bulshada asallaan hadii maasaso waqtigeeda timid weeye baahida way jirtaa waa dadaal doontaa waa jiranayaa ka culumaan inta waqtigeena insha Allah taageerina xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Cabdirasaaq Dheere ayaa ku amaanay culimada Soomaaliyeed dadaalada ay ku wacyigelinayaan bulshada aniga culimada ma ahi laakiin waxaan jeclahay inaan culimada ag joogo ama aan dhageysto ama aan la socdo taasa waxay keenaysay saacadaha badan oo fadhinay inaanan dareemin hadalkay dhahayaan oo kugu soconaya han noqoto iyo aslan anoo sambatiye isaga haya han noqoto Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho